guushii ay muslimiintu ka gaadheen dagaalkii weynaa ee Beder waxay astaan u ahayd bilowgii guulihii bisha Ramadaan. Bishan duulaankeeda iyo camalkeeda wanaagsan waxay siisay rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo asxaabtiisa samir aan dhammaad lahayn iyo go'aan aan dhammaad lahayn iyo weliba geesinimo aan xad lahayn. Mar haddii aad soo xasuusato dhacdooyinkii muhiimka ahaa ee soo maray taariikhda Islaamka ee bisha Ramadaan, qof kasta oo Muslim ah waxaa maskaxdiisa ku soo dhacaya dagaalkii weynaa ee Beder. Rasuulku sallallahu calayhi wasallam iyo asxaabtiisu kaga guulaysteen guutooyinkii gaalada ahaa ee reer Quraysheed. Si aad u hesho muuqaalkan iyo muuqaalo kaloo ka qurux badan, fadlan ha naga hilmaamin inaad nagu soo biirtid. Mahadsanid. Dagaalkii Beder wuxuu dhacay subaxnimadii Isniineed 17kii Ramadaan sanadkii labaad ee Hijriyada, halka uu ka dhacayna waxay ahayd dhulka loo yaqaan Beder. Reer Quraysh ayaa ganacsi u dirtay dalka Shaam iyagoo hoggaan uga dhigay Abu Sufyaan. Kadib Abu Sufyaan ayaa ganacsigii ka soo raray dalka Shaam. Kadib muslimiintii ayaa ogaaday in Abu Sufyaan ka soo baxay dalka Shaam isagoo wata safarkiisii ganacsiyeed, waxayna go'aansadeen muslimiintii inay jidgooyo ku sameeyaan safarkaas. Waxayna muslimiinta ku soo baxeen tiro dhan 312 nin oo iskugu jira muhaajiriin iyo ansaar. Abu Sufyaan ayaa ogaaday in muslimiintu u soo baxeen in safarka ay qaataan. Kadib wuxuu bedelay wadadii uu ku socday, wuxuuna fariin u diray reer Quraysh si ay u difaacaan safarkooda. Reer Qurayshna waxay isu diyaariyeen si ay u soo dhacsadaan safarkooda. Waxaana Maka ku hadhay dad aad u tiro yar, waxayna Maka kaga soo baxeen iyagoo wata 1000 dagaalyahan, waxayna wateen sidoo kale 200 oo faras. Kadib markii Abu Sufyaan ku wargeliyay reer Quraysheed in safarkoodii uu badbaaday, gaaladii reer Quraysheed laba ayay noqdeen, kuwa doonaya inay iska laabtaan maadaama uu safarkoodii u badbaaday, iyo kuwa kale oo doonaya in gebi ahaanba la cirib tiro rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo asxaabtiisa radiyallahu canhum. Waxaana ragga ugu horeeyay Abu Jahal, waxayna Quraysh ku raacday ra'yigii Abu Jahal oo ahaa in la cirib tiro Islaamka iyo rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Waxayna hadafkoodii ka dhigteen inay la dagaalamaan rasuulka sallallahu calayhi wasallam si ay carabta kale ugu sheekaystaan xoogooga iyo sharaftooda. Markii Nebiga sallallahu calayhi wasallam uu maqlay safarkii reer Quraysheed inuu u badbaaday oo loo soo waxyooday in reer Quraysheed isu diyaarinayso dagaal weyn, ayuu Nebigu sallallahu calayhi wasallam la tashtay asxaabtiisii. waxaana ra'yi ka dhiibtay Abubakar, Cumar bin Khattab iyo Miqdaad bin Camr. waxayna isku waafaqeen inay ka horgaadhaan Beder, ayna ka soo horgaadhaan ceelka Beder, una ceelka Beder uu noqdo gadaasha muslimiinta. waxaana sidaa ku taliyey Xabbaab bin al-Mundir. nebiguna wuu ku aqbalay fikraddaas oo wuu qaatay ra'yigaas. aroortii dagaalku dhacay, nebigu sallallahu calayhi wasallam safaf ayuu geliyey si ay u dagaalamaan asxaabtiisu. waxaana nebiga sallallahu calayhi wasallam looga dhisay teendho asxaabta gadaashooda si nebigu sallallahu calayhi wasallam u bixiyo awaamirta iyo weliba amarada. wuxuuna nebigu sallallahu calayhi wasallam ilaahay baryayey in badan ilaa ay soo degtay aayaddii إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. nebigu nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee wuxuu soo baxay isagoo akhrinaya sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur. kadib dagaalkii ayaa bilaabmay, waxaana dagaalka ka horeeyey dhoolatus dagaal amba waxaa loo yaqaano almubaaraza. waxaana dhinaca Quraysh ka soo baxay Cutba bin Rabiica iyo inankiisii Waliid iyo walaalkii Shayba, halka ay muslimiinta ay ka soo baxeen dhalinyaro reer ansaar ahaa. wayna diideen, waxayna idhaahdeen reer Quraysheed waxaanu u baahannahay ilmaadeeraday. wuxuuna rasuulku amray inay baxaan Cali bin Abi Taalib, Xamsa bin Cabdilmudallib iyo Cubayda bin Xaarith. xamse isla markiiba wuxuu dilay Cutba, sidoo kale Cali bin Abi Taalib wuxuu dilay Shayba. Cubayda iyo Waliid ayaa dhaawacyo halisa isu geysay. kadib xamse iyo Cali ayaa dilay Waliid.
reer Quraysheed ayaa soo qaaday weerar aad u weyn halka Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam amray asxaabtiisa inay leebab ku ridaan haddii u soo dhowaadaan muslimiinta. Ugu dambeyntii labadii dhinac ayaa iskalay oo xaggaas dagaalkii ayaa ka bilaabmay, wuxuuna Alle subxaanahu wa tacaala ugu deeqay muslimiinta malaa'ig ku jirtay oo dagaalka oo la dagaalamaysay kufaartii reer Quraysh. Bartaas waxa ku jabay dagaalkii reer Quraysheed oo ugu horreeyay hogaamiyahoodii Abujahal oo ay dhaawaceen 2 wiil oo dhalinyaro ah oo reer Ansaar ahaa. Xagga uu uga takhalusay Cabdillaahi bin Mascuud halka uu Bilaal bin Rawaax uu ka takhalusay Ubay bin Khalaf oo aad u dhibi jiray markii Maka la joogay. Halka rasuulku sallallahu calayhi wasallam ku amray asxaabtiisa in meydkii gaalada reer Quraysheed oo ahaa 70 ruux in lagu guro ceelka Badr, halka 70 ruux oo gaaladii Quraysheed ahaa ay muslimiintu ka qabsadeen dagaalka, halka intii soo hadhay ay ka yaaceen goobtii dagaalka iyagoo ka tegay qaniimooyin aad u fara badan, halka shuhadada muslimiinta kaliya ay gaadhay 14 shahiid. Ugu dambeyntii waxaa xoogaystay awooddii muslimiinta heer ay ka wada baqaan qabaa'ilka ku nool jasiiradda Carabta. Kuwii ka shakiyey dacwaddii rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo mushrikiintii kumay dhiiran inay muujiyaan gaalnimadii iyo cadaawaddii ay u qabeen islaamka, waxaana soo baxay munaafiqiin qarsanaya gaalnimada muujisanayana islaamnimada, waxaana kor u kacay kalsoonidii ay asxaabtu ay ku qabtay Alle subxaanahu wa tacaala. Mushrikiin aad u fara badan waxay soo galeen diinta islaamka. Sidoo kale muslimiintu waxay dagaalka ka heleen in iimaankoodii uu sii siyaaday, waxayna ku sugnaadeen diintooda islaamka. Sidoo kale muslimiintu waxay dagaalka ka barteen xirfado ciidan, habab cusub oo loo dagaalamo iyo gebi ahaanba sharaf ballaadhan oo ay ka heleen jasiiradda Carabta, halka dhigoodii reer Quraysheed ay soo gaadhay jab aad u weyn iyo fadeexad aad u ballaadhan. Intaa waxa u dheeraa dilkii Abujahal, Umaya bin Khalaf, Cutba bin Rabiica iyo madaxdoodii ugu waaweynaa, kuwaas oo ka mid ahaa kuwii Quraysh ugu geesisanaa, ugu xooga badnaa, uguna awoodda badnaa. Sidoo kale may ahayn khasaaro dagaaleed oo keliya oo soo gaadhay reer Quraysheed, balse waxa soo gaadhay khasaaro ama guuldarro meel kasta taabanaysa. Haddaba dagaalkii Badr inkastoo ay muslimiintu yaraayeen, haddana waxaa lagu tiriyaa inuu ahaa dagaal go'aan qaadasho leh oo taariikhda islaamka soo maray, waana sababtu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu magacaabay yowm alfurqaan, waayo waa maalintii Alle subxaanahu wa tacaala kala saaray xaqa iyo baadilka, wuxuuna Alle subxaanahu wa tacaala kor u qaaday kelmaddii iimaanka, waxaanu hoos u dhigay kelmaddii baadilka ahayd. Muuqaalkeenii maanta intaas ayuu inoogu eegyahay. Waa anigoo Cabdifataax Axmeda oo idinkaga tegaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.